bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka xaqiiqsan media fadlan daawade sabscribe saare channelkan like iyo shartana ha ka ilooban sidoo kale gambaleelka furo si wararkeena ay kuu soo gaaraan waadna mahadsantihiin madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa maanta xafiiskiisa waxa uu ku qaabilay wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen madaxweyne laftagareen iyo xubno la socda ayaa maalin ka hor waxay soo gaareen magaalada muqdisho waxaana kulanka oo ahaa qadar sharaf ay uga wada hadleen arrimo dhowra inkastoo kulankaasi madaxtooyada soomaaliya weli faahfaahin guud ka bixin ayaa haddana warar la helayo waxay sheegayaan inay uga wada hadleen sidii loo adkeyn lahaa wada shaqaynta ka dhexeysa dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed sidoo kale waxaa laisku soo hadal qaaday arrinta mukhtaar roowe oo muran badan uu ka taagan yahay islamarkaana ay siyaasiyiinta iyo xildhibaanada loogu dhagan yahay in shakhsigaasi dowladda lagala hadla inay sii dayso arrinta mukhtaar roobo ayaa walaaca waxay ku abuurtay mas-uuliyiinta maamulka koonfur galbeed oo culeysyo kala kulmayay waxgaradka iyo shacabka gobolkaasi waxaana ay sheegeen in muhiim tahay in lasoo daayo mukhtaar roobo oo dowladda si qalad ah oo weliba xoog sheegasha ay u xirtay mukhtaar ayaa laga soo xiray magaalada baydhabo xili halkaasi lagu waday ama ay ka socotay ololaha doorashada maamulka koonfur galbeed ee madaxweyne laftagareen lagu doortay dowladda federaalk soomaaliya ayaa ka hor istaagtay mukhtaar roobo inuu u tartamo madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo markaasi ololihiisa uu ku jiray